wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Liban Yusuf Ismaan ayaa ka qayb galay shir caalami oo ka dhacay magaalada Dubai iyo fursadda Somaliland ugu jirtay shirkaasi. shirkan ayaa socday muddo 2 maalmood waxaana ka soo qayb galay khubro iyo madax ka socotay dalalka caalamka. intii uu shirku socday waxaa laga hadlay sidii dunidu iskaashi uga sameyn lahayd dhinacyada dhaqaalaha tamarta. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Liban Yusuf Ismaan ayaa kulamo gaar ah la yeeshay khubradii shirka ka soo qayb gashay iyo sidoo xog waran uga siin lahaa kheyraadka dihin ee dhinaca tamarta, iskaashiga dhaqaalaha, ammaanka iyo ilaalinta deegaanka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa la wadaagay xubnihii shirka ka soo qayb galay qoraallo ka waramaya kaabayaasha horumarka sida dhaqaalaha, siyaasadda arrimaha dibadda, siyaasadda maalgashiga iyo ka faa'iideysiga tamarta laga helo qorraxda iyo dabaysha, iyo doorkay ka qaadanayso ilaalinta deegaanka Somaliland iyo dunida oo iskaashi u ka dhaxeeyo. shirweynaha caalamiga ee dhaqaalaha dunida ee loo soo gaabiyo WGES mid ka mid ah shirarka caalamiga ee ku saabsan dhaqaalaha cagaaran ee dunida ee isku keenida khubaro heer sare ah waxay diiradda saari doontaa horumarinta dhaqaalaha cagaaran ee caalamiga iyo ajendaha joogteynta ee shirka muddada uu socdo. shirkii wadaaga dhaqaalaha dunida wuxuu isu keenay khubaro heer caalamiya oo ka shaqeeya qaybaha muhiimka ee adduunka oo dhan si loo gaadho dhaqaalaha caalamiga ah ee cagaaran iyo qorshaha waaritaanka himilooyinka horumarinta qaramada midoobay. shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda horumarinta dhaqaalaha caalamiga ah ee World Green Economy oo lagu qabtay magaalada Dubai ee isku taga Imaaraadka Carabta waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktubi iyadoo la kaashanayo golaha sare ee shacabka dalkaasi. shirkan ayaa soo bandhigaya xalal cusub oo yahanaan hormuud u ah si loo dhiirigeliyo isbeddelka abuuraya jawi sahlaya habka deegaan si loo helo kobcitaan cagaaran oo wax ka qabta baahiyaha hadda iyo mustaqbalka. shirkan ayaa lagaga hadlay 3 qodob oo kala duwanaa: 1 hoggaanka iyo ka qaybgalida bulshada, 2 green capital, 3 tiknoolajiyada casriga ah. dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Liban Yusuf Ismaan ayaa kormeer ku tegay safaaradda Somaliland ee Dubai kulana la yeeshay wakiilka Somaliland Yaasiin Hirad oo uga xog waramay shaqada safaaradda iyo kaalinta ay ku leedahay horumarka dalka. qoraalkan ayaa ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland.